الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhammaan marti sharafka qiimaha leh ee ka soo qayb galay xafladan maanta waxaan idin leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin runtii maanta waa maalin noo wada muhiim ah dhammaanteedaba maxaa yeelay waxaan ayaan maanta u dabaaldegaynaa sanad dugsiyeedkooda marka insha Allah taala xafladii way noo bilaabmaysaa waxaan idin daadin doonaa anigoo Maxamed Cabdullaahi Cali dabcan xafladu way noo furan tahay balse waxaan rabnaa inaan ku bilowno aayadaha Qur'aanka Kariimka ah waxaan noo akhri doonaa oo xaflada inoogu furi doonaa ma noogu daahfuri doonaa أنفع عبد السلام محمد أوكي الله صعبيو فليتفضل مشكور أنفع بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أنفع ما شاء الله آدياد أيضا ما سنتهي codkaaga macaan ee aad noogu soo jeedisay aad noogu akhrisay suuradda ugu weyn ee Quraanka ee suuratul Faatiha ma sha Allah suurada aad u wanaagsan baad noogu furtay marka waxaan u yeerayaa waxaan galeynaa dhanka khudbooyinka macallimiinta marka waxaan rabaa inaan u yeero macallimad Nimco Cabdiraxmaan Nuur oo doonaysa inay halkan ka soo jeediso topic usaabi bismillaahir rahmaanir rahiim awalan متشرفت والدينتا معلمينتا أرضيدا أبحا يرى قروح بدن له معمول كيسكول كدمان وحنا نقول سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز حكتا أرتا الحمد لله أن إلهي مدشان قروح بدن نقول كل مياه أيام هذا سكالة حلفت دوساسي نقوده فرونتس ينوشيجي كدكتوركو ما شاء الله أرتا أدان لفكر مدد ديبتو أن قطوة أركتان وبحا قروح بدله iyagoo yaryar quraan akhrinaya la soo barbaarinaya hawshooda wata hadana alxamdulillah bal leenahay anta aad waxaan ugu faraxsanahay ubaxan soo saarnay maanta inay u gudbayaan kaalin ka sareysa ama gareedintan ka duwan ma sha Allah waxa la dhigay macallin iyo qalin ayaa duuno dhan bedela marka xarajeena insha Allah inay noqon doonaan ubax fiican oo insha Allah mustaqbalka iyaguna insha Allah saasoo kale wax kale soo saari doona ma santiin waxaan ahay horta macallimiintii hore magaceygana Maxamed Muuse la yiraahdo barsho wanaagsan macallimiintii waa bari baan ahay halkan ka dhigi jirtay waxaan maanta markaa halkan si soo taagay inaan kelmad kaliya ka iraahdo kelmadda waalidka iyo macallinka iyo ardayga xiriirka adiga jeer assalaamu calaykum macallinka iyo waalidka iyo ardaygiisa waxa waajib ah in xiriir dhow ka dhaxeeya ama mid qaban sogaansha hadaba macallinka iyo waalidka iyo ardaygiisa saanu gacantiisa uga bixin ilmuhu si ilmihiisu u noqdo ilmo tayo waxbarasho leh sida awgeed waxaan idinku bogaadinayaa ama aan idin faraynaa inaad yeelataan wada shaqayn fiican si ardayga ama ilmahaagu u noqdo mid tayadiisa waxbarasho aad u fiicnaato markaad saddexdiina isku xidhantaan war ilmahayga halkuu maraya war ilmahayga aqoontiisu sidee tahay maanta ma yimid caafimaadkiisa ka warrama waxyaabo badan baa meesha laakiin haddii iga geeyo soo qaad ay noqoto foundationkiisa xumaanaya meeshana waa meel foundation lagu sameeyo aqoonta ilmaha yar lagu soo kaabo waa goob waxbarasho waa goob aqooneed si aad isla ogaataan heerka waxbarashadiisa macallinkan la hadlayaa macallinka waxaa looga baahan yahay inuu la socdo aqoonta ardaygiisa had iyo jeer heerka uu marayo waalidkan la hadlayaa waalidka waxa looga baahan yahay isna sidoo kale inuu si fiican habeenkii marka ilmihiisa yar soo rooxo inuu ogaado heerka waxbarashadiisa uu buugiisa baaro oo uu eego caafimaadkiisa wax walba si ma sha Allah ardayguna uu noqdo mid waxbarasho diyaar u ah had iyo jeer oo de u bisil laakiin ilmo yar hurdo haduu yimaado waxba de baran maayo maalinta uu hurdo ama uu yar xanuunsanayo guriga ayaa lagu reebaa ma sha Allah kelmadeedu saasan waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay baa mahad leh bas ma sha Allah waan mahadsantiin marka waxaan rabaa inaan u yeero group in halka inooga soo jeedi doona nashiido
وانا اسلو بحينا عبد الحكيم واد مقليسا صح عبد الحكيم هدي وجوغو سو يساق مسرحه نذيره هدي مقليس سيدنا مسرحه سو يستاغتو سعاده هدي مقليس سيدنا مسرحه سو يستاغتو أكرم هدوي مقلينا مسرح سو يستاغو آدن هدوي مقلياسنا مسرح سو يستاغو دمان وبحينا أن صعبده وقرعنو سوى عنا مسو جوجين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما شاء الله إلى ماركا أنا حاجة أبغى إن شاء الله وحرب أنا نويرو هو عاشا عبد الرحمن برقات وأندوني إنه هل كان إنه كسوتشي دي صوته بكسابسن إن حريرك والدك يو معلمين تكدحية سيدا أي أركتو سكول كهميلو وأن ما أنت سنة دكتور كيس لوضع كوني لباتن لوضع كون سدحي لباتن أنا دبل دقينه مركب هو يوحنا هاي هو عاشا عبد الرحمن برقات عن صعبته من سودوين وعن himilo waxaan leeyahay waa iskool loo baahnaa waa dugsi loo baahnaa waa xadaanad loo baahnaa maanta tusaale ahaan maalinkan gabadheeda aanu anfac keenayay waan kala cabsanay waxbarashada xataa albaabka ma gaari karin waan cabsanayay kiin baan kala tashaday waxay ugu tiri waa caadi wad keeni kartaa maantana iska daa xadaanada iskool weyn baan ku hamiyay inaan geeyo ama madrasad waanu abaal baanu hayaa himilo iskuul maamulka macallimiinta waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan maanta ogahay qiimaha waxbarashadu leedahay anagu waxaan nahay dal waxbarasho aabaay waa macallin ana sidoo kale macallimad baan ahay awlaaddeedana waxaan jeclahay inay macallimiin noqdaan marka xigta waxaan halkan ka oran lahaa kelmad kaliya oo wallahi horta maanta farxad daraadeed ma bahadli karayo ma sha Allah waayo shay aan sugi jiray oo ku deehamin jiray ayaan maanta aan arkayaa hordhiciisi taasoo ah idan maanta xaflad ay awlaadaydu loo qabanayo aan ka soo qayb galo taasna wallahi waa fadlullaahi wa raxmati marka halkan waxaan ka oran lahaa hadaan marka hore ka bilaabo sidaan ilmahayga aan ku keenay dugsigan gabadh baa horta ii sheegtay khayr Allah siiyay inuu dugsigan jiro waxaan keenay ilmahayga bishii Ramadaan dhexdeeda ilaa iyo maanta wallahi isbedel aad u weyn baan ka dareemay ma sha Allah xaka akhlaaqda hadii la eego waxbarashada mid kale ilmahayga ma sha Allah si degdeg wax u baranaysa oo sariica taasna wallahi waa shay aan ku farxo ma sha Allah waayo anuu ismaan lahayn keeji ayay waqtigan ay ku dhameystiri doontaa laakiin ma sha Allah waxay heshay macallimiin tayale oo ma sha Allah la xisaabtamaysa oo ardaygii si fiican wax u baraysa oonan karhayn taasna wallahi waxa weeyaan farxad aad u weyn markaas wallahi maanta waalidiinta macallimiinta iyo maamulkuba ma sha Allah waxay nagu leeyihiin duco iyo idan mad aragtay aan la shaqeyno inaan markaas u yeero Sabriin oo doonaysa inay halkaan nashiida inooga soo jeediso okay Sabriin iyo Nuura hadday maqlayaan مسرح كوسو دوادا رحمن يا رحمن سألني يا رحمن إشع صوتي قرآن وتحياتي قرآن يا نبي صلاة عليك يا رسول صلاة عليك يا حبيب صلاة عليك الصلوات عليك محمد حسين أبا محمد حسين بندوني أنا مسرح كوسو دوينو صادرا فليتفضل مشكور أما سيجوا سكول كواحد لا يراهي وحوك كوبيه مركا وجور رئيس والدك كو والدك يا دونا وبدكاس كينين يسوق ماشى
dee maba jireen iskuul nin iskuul si diyaarsan lahaa maba jiro kuwa kalena waxa weeyaan ardayda weeyaan ardayda iyo ka labaada saddex waxa weeye iskuulkii ay ka imanayeen saddexdaas hadday wada shaqeeyaan waxay noqonayaan wixii la barayay dad barta marka iminka dee waa bilow iskuulku ilaahay waxaan rajaynayaa inuu noqdo mithaal arrintaa aan idiin ka sheegay China een arkay dad baa ka shaqeeyey wax iska yimiday maaha markaasaan uga shaqayno weeyaan ilaahay idinku guulaysiiyo waalidiintana waxaan leeyahay horta waalid raga oo meeshan fadhiyaa ma jiro waxa weeye nasiib darrada weyni waxa weeye reerkayaa ka mas-uula ninkaa ka mas-uula sharciga ilaahay ninkii hadduu wixii ilaahay siiyey waxa ugu qiimo badan ilmaha ilaahay ku siiyey baa adduunyada ugu qiimo badan haddaad wax barto wanaag barto diinta barto barto muxuu farsamooyinka adduunka marka ilaahay ragga ku soo hadeeyo inay ubadkooda koriyaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضيبانا هايو waxay waalidkii ugu horeeyay oo meesha soo dulqaatay waayta waxay ilmahayga ugu horeeyay ka soo qortay xagan kuwi kale way socdaan laakiin iyada kuwi ugu horeysay wallahi kuwi ugu horeysay iyada ka soo hadhay ma sha Allah وإنتي واتن أبغى نورج وجا مانتا مركز والد كان إن شاء الله إن ما هدي سنسي عينين كرنا وقتها وحس إنه يسدل قاد بدن ما شاء الله بلون كسر دوينا بالسيفة فاينا وبسيسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان وني والسلام يا مرت الشرف كقيمة عليه يا قصة قيم قشي حلف الدنقالة يعني أنا قاعد بغالي يقول هاي inantaydaas oo maxaan ku dhahay meeshaas cidla tahay oonan cid islaami joogin oo ina ka quraatay maxamed dhex joogo iyo maamulihiisu ayaabaan inantaydaas iyo inan yar oo familigeyga ayaan keenay deetana markaas la igu yiri meeshan waaba cidli maxad ka keenaysaa meesha waaba cidli maxad ka keenaysaa maantana ma sha Allah meel fiican bay maraysaa wax barashadeedu edeb akhlaaqad macalinkiin aad baan abaal ugu hayaa ma sha Allah ilaahay ba horta abaalka gudo bilaadan ma gudo يعني هي ونيد عينيا انت بدن إن شاء الله قرر استقاضنته. أوكي واي امتحان كان شكشاك دونا امتحان كأرضي كجوليستي لكن كار وحن سمين دونا أنا أرضي والبيش على سوى حن قلت لك الله جايسد ما دام عرضت روح قرقر بدل أنا دوني مننا لقى عريسية مركان يدينا أنا وذا السنة ربنا مركز إن شاء الله نكون ساعة كنا عاوية. اوكي دبد xogaa yar barnaamijkii waa gabagabo waxaan rabaa inaan u yeero oo halka inooga soo jeediyo khudbad ama topic ku saabsan dhinacyo badan taabanaya mustaqbalka iskuulka iyo Himila School waxyaabaha ay hiigsanayso معلن مختار عمر محمود ومامولها سكول أنا صعب. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كل سلام إن شاء الله. وما سنتين وقت بدنا كما قالنا إن شاء الله قرأت السوق كلاتي. نسكسو جبيننا. ورحمة مركو وريسو ما أنت وحماش نسوي وحكي لما علمها سنة ديرنا. سنة دكسير دمانة إن نسي سكوتينو. متكلو صوص عدنا إن نسوي دوينو. يمد أنت سيد المعنى إن لقوا فرحيه أو الوديري وحبرشة إن شاء الله وحكى إنه هدي عن سكول كنا هاي والدين تبى هنا وقالنا بروجرس المعنى ماشي ومرعي سمر كان ماشي عن صعودنا وقالنا مقتل ماشي أنت قلنا هنا وقالنا وعن قيمين كسمينه مركا امتحانك مهم دي سنتا سيد إن لو كل الأرض ولا ماشي وكيف قاعد وقول السنة ماشي حاجة وباهين لقى فيري إن شاء الله والد كنا ومعلن كلبتها أنتي والدك وكان برباريه دبتها يقولي كوها عالورته لا أنتي زحمة صعنين
annagu waxaan nahay uun kaabayaashuun maamulkii iskuulkiiba marka insha allah wada shaqayntiina dhexmartay muddadan soo wada wadnay mid kasii fiican inay noo bilaabataan rajeynaa sano dugsiyeedka cusub insha allah haddii la yidhaa waalidiintiina kulli waa idiin mahad celinaya inta meesha timid waa run yurub waxay ahayd waalidka ugu horeeya noo yimid hal arday laba arday aan ku bilownay marka maantana insha allah waan soo wadnay in muddo inaan meeshan hore uga sii socon waan rajeynaa insha allah oo iskuulka caga dhigto kolley waxaa laga soo hadlayay hadafkii ujeedooyinka waa lasoo wada maray gaal ugama noqonayo laakiin waxaan rabay inaan soo kooboon maxaa xiga meeshan maxaa ku xiga haddii la yidhaha kolley iskuulkan xadaanadan ku bilownay markii hore caruur yar iska hayeen laakiin haddii la yidhaha waxaan kusoo kordhinay hadda kowaad ilaa afraad oo subaxdii aan qaban doono insha allah sano dugsiyeedka cusub wuuna yimidba sano dugsiyeedka cusub waa bish soo socota marka qoristuna way bilaabatay insha allah waan ka qabanaynaa ardayda wix noo keena haddii la yidhaha waa subaxdii galabtiina wax program inaan ugu talagalno ardayda u baahan in laga dabageeyo da'dooda inaan ka qabano insha allah kooy looma joogto marka insha allah waqtigii iska gabagabaa waan soo gabagabaynaynaa waana mahadsantiin waqtigiina waa qaaligana siisan waa idinkaga mahad celinaynaa